حد أيو صحيح حد أيو صحيح حد أيو صحيح سودوا waxaan dhigeysiinaya waxaan weli la arag ayaa caawin dhigeysiinaya waa taariikhda muqdisho iyo dadka ku nool bahalkaleeka caawin ka hadlaynaa shalay baan nii sheegay ayaa nii sheegay inuu qarax sii badan doono weli muqdisho 2006 ilaa maanta 2019 lagu jiro hal maalin kama aysan dhicin 5 qarax hal maalin 3 qarax oo ugu badnayd 4 qarax ma gaarin maanta 5 qarax baa ka dhacday shalay baan nii sheegay qarax inuu sii badan doono unukaale intii lagu hayo muqdisho haddaan loo ogolaanin ummadda Soomaaliyeed baa iskale muqdisho haddaan la dhihin afkiina laga maqlin qarax uu badan doonaa dhimashadu way badan doontaa meydku wuu badan doonaa muqdisho bahalgaleen waaye waxa qarxina waa la og yahay marka waxa loo baahan yahay muqdisho yaa iskale yaa waardiyen kara yaa amarkeeda ka baxda yaa shalay nii sheegay in uu qarax dhici doono deeqiisud baa nii sheegay shalay saacadaan kala nii sheegay tunufa awrs kama soo wareegin 5 qarax markay ka dhacday marka caaw taariikh bari baraya nin la yiraaho xosh kibrey nin la yiraaho baawni dhigeysiinaya ummadeena ma aha waa nin taariikhda oo yaqaano waa oday weyn waa oday soo jireena waa oday aqoonyahana waa oday lacagta u badan Soomaaliya iska leh waa nin daarooda waa nin mareexaana waa nin seeda daarooda marka ninkaas caawin dhigeysiinaya wax ka barta waxa aniga nii sheegay shalay in saahin wax idla aysa been ku dhacayn hadalka deeqiisud waa xadiis shalay baan nii sheegay qarax inuu badan doono dhimashadu intay badan doonto in ay hadalkeedu uu yahay xaqiiq uu ku salaysan yahay marka xoosh baan wada dhigeysanayna xoosh baan noo daaraya bal dhageysta bal xoosh wuxuu ku hadlayo inuu aniga luqadeeda ku hadlayo iyo inuu luqad kale ajnabi ku hadlayo xoosh baan noo raadinaya horta iga dimi waxaan bal wax badan baa ku taabtay miya wadano bal odu arkaba warqad inuu u saxo yiraaho ciidamadiinu saldhig baan ka siinaya waxaasuu la wareegay waxaasad qabyaaladku daba taagantihiin hiraab iyo hawiye waxaan ula hadlahayaa xasuusin iyo dareengelin qashinka ay dhex fadhiyaan inay xaaqin u qaataan ama wax gartaan ma noolaan kadhaan ma jiri kadhaan qaraxu idinkama kacayo dilku idinkama kacayo shabaabku waa adinka waxa hunguriga doonaya waa adinka midka qaanin wadanka waa adinka waxa weeye war Soomaali kama maarantaane waad aragteen waqooyi baa in ka go'ay waa ka go'an qashinka wax kuma darsanayno markaad waxa sameynayeen weeye daarood baa in ka tago Jubbaland iyo Gado iyo Bu'aale iyo dhulkaas iyo Jubbooyinku haystaa bari iyo Boosaaso haystaa daarood wuxuu haystaa muxuu ahaa kilkii sharaad buu haystaa war meeshan aad ku jabaysaan kama liidataan hawaadle marka hiraabna maaha hawiyayeedana maaha this why uu shalabada galood la isaga keenayo markaan wareysanay waxay yiraahdeen waxna ma deeqaan waxna ma gartaan waa waxa cadaadadii xuntahay mid ka jisano oo yiri dhuusa mareeb waxa laga xukumaya cadaado kuwa jooga hadda weysla hiraabkiini dhuusa mareebo mareexaan iyo dir baa ahayd oo iska qabsateen war hawiyow ama hiraabow ma jiri kadib oo ma noolaan kadib oo muxuu ahaayey aeroboortkii Soomaaliya ayaa Turki ka qaatay nin madaxweyne sheeganayo Turki oo dadkiisu hadda dilayaan ayaa in ka qaatay iskuuladii dadku Soomaaliya ku dhisteen iska wax qabsan la qaatay isbitaaladii baa la in ka qaatay ummadda Soomaaliyeed baa ahayd waxaan uu Xasan Sheekh gadanayo ka gadanayo madaxweynaha Turkiga ama naagta Turkiga uu ka gadanayo abaar baa dadka heshay ku soo galay dalka maahane waa isticmaalka fooqal isticmaal dadka Turkiga la yiraahdo iyo Turkiba garanna maysaan afxuno bacha waa wuxuu leeyahay ciyaal baan wax soo baraya ama iskuulan ku dhigaya bacha baa la adduunka meel looga hadlaa bajiro war hawiyo de qoladu loobayso de marka dambana daadka iyo badaba Ilaahay qaadsiin doono Soomaali baa tihiin in leeyahay xadu baahantiin dadka bini'aadmiga waa dadka adinkoo kala waa la ogaashaa ma laba sii daayo adduunku waa leeyahay dad adinkoo kala muxuu ahaay laakiin dadkooday maqlaan oo waxooda wax garanayay maqlaan
hadday iyaga ka dhasheenna waa maqlaan oo hadda ma suurowdo ummadiinaa badan inna culummo lahayn wax garata diinta garata inna lahayn muxuu ahaay dad caqli leh oo wax garta bahaankiiba adinkiiba ina asqaysiiyey waxa in ku badan majority-ga quality-ga in ku yar waxa in ku badan majority-ga aan waxba garan maxaa la cunaa maanta kuwa yidhaaha kuwa qiiqa raacaa in ku badan waxa in ku badan waxa qabyaalada la yidhaaho qabiilka waad u dhalateen waxa u yaala yidhaaha laakiin qabyaalad urayso oo adinkuna aad isku disheen soomaalina aad ku noqoteen tuka cambaar leh oo magaalo madaxdii aad ka dhigteen oo ummadii Soomaali bal diinta islaamka haddaad garanaysaan bal kuwa guryaha ku buka waa Cabdi Xawsho sakaraadka ah jananada sheeganaya ama safiirada sheeganayo sakaraadyada haddaad diin lahayd kuwaas aad u sheegi lahayd oran lahaydeen war islaam haddaati kuwa midkaan gadanaya hantidii ummadda Soomaaliyeed naag uurle ilma agoona mid jiisa mid xoosh kibrina caawa iyo hadlaya anigoo ah deeqsood gacayarahayga xoosh ayaa caawa hadalkiisu adigay ka muhiimsan iga codkarsan waxa uu moodaaba madaxweynihii qaranka ummadda Soomaaliyeed madaxweynihii ciidanka xoogga dalka abuuray Soomaaliya luuqadana baray aan ku hadalno luuqad si loo qorana baray 20 sano iyo 21 sano caalamka la dartamay afkiisii luuqadiisii codkiisuba leeyahayba ninkan caawa showgan iskale u furayahay xoosh kibrina liidaha marka ninkan wuxuu ka hadlayaa waa xadiis xitaa wuxuu yiraahday dadka hadii diin leeyihiin isma qarxiba qof muslim oo ogteen adus qarxiyo meeshu aadayo marka maanta waxa is qarxiyay fiqi in adeerkiis laxmiya is qarxiyay fiqi baa soo adeegsaday fiqi baa qaraxa ka dambeeyay kaliya fiqi wuxuu rabaa inuu yiraahdo dawladda waxba ma qaban qarxi muqdisho ku batay intaas kaliya wuxuu dhayn adeerkaale is qarxisan u badbaadina hawiya asoo mus qarxiya deer ruka tahay hadii la siin lahaa agaasime dawladda Soomaaliya kamida oo magac ku yeesho wuxuu ogolaan lahaa dawladda inuu la shaqeeyo amaano kaliya wuxuu la shaqeyn waayay dawladda oo uga soo horjeeda maxaa xilli siin waayay sidaas uu dadkiisu u leeyahay calooshiisa iyo maskaxdiisa iyo futadiisa oo isku mid wallahi inuu wax dhaama lahayn waa fiqi ninkii maanta soo booday oo haddana ka hadla qarxa qoryaa kaaga futuxun dadkaaga baa laynaysa adiga dadkaaga laynaya yaa u sheegaysa farmaajo wuxuu ka imaaday garow ka imaaday waa nabad wuxuu ka imaaday Kismaayo waa nabad wax ka maqan ma laha adigii baa madax lagu noqonaya oo guriga lagu maamulaya oo la kala dhicinaya haddii kale dadka cabir saaraysa dadka si loo kala buuran yahay ayaa lacag loo kala qaadaya masukar baa la gadanaya mise raashin markii qof intii miisaan la saar leeyahay $5 baa laga qaadaya adiga waa culustay adiga $3 baa laga qaadaya sida deeq soo kala caata tahay waxaana kala aqli ma ahan ninkan ku soconaya dhageysta waa oday 8 jira oo lacag leh oo siyaasiyiinta Soomaaliya wasiirnimo soo maray oo xildhibaanada ku jira runtu ka hadlaya runtu dadka Soomaaliya diidayaan warahawiyow in lagu maamulo maahane isma maamuli kartid wayna antidii ka gadanaya madaxweynaha Turkiga ayaa u sheegi lahayd yani xaraanta noocaas oo samaynayo war si soo leeynin daba qafto oo Soomaali inii daba qabato weey waxaan la hadlaya war wax runa wax inii sheegay male adinkuna isu sheegi meesaan war waxa weeye Soomaali weyn ka tashatay waa layna arkay waa layna ka tashanaya war waad isku dhamaanaysaan adinkay dilayo dadku way ka tagayaan oo gobol kasta iyo qolo kasta aba mas'uuliyadeeda iyo qarankeeda iyo waxeeda gaar bay u dhisanaysaa waad maqasheen federaal mooye wax la isugu imaan karaa ma jiraan federaalku hadduu Muqdisho sidaa aad u qaribteen ay ahaato de meel kale ayaa federaalka loo rarayaa la geeyaa oo meelaha صح عاصمته waa laga rarayaa Muqdisho bahala galeen way dadka Muqdisho ku nool dhan waa kulli al-shabaab waa argagixiso waa dad aan dadka raba inay laayaan waa dad ugu baxdo inay lacag ka sameeyaan iyo nolol ma aaminsana hawiye hadii dawlad la dhisto waa noolaan kartaa oo lacag bixin kartaa waa shaqaysanaysa ma aaminsana waxay aaminsan yihiin dadka inay dilaan oo dadka dhacaan inay ku noolaan karaan waa miday aaminsan yihiin dawlad ma ogola waxay dawladda ka jecel yihiin farmaajo ay ka jecel yihiin inay isqarxiyaan inuu qabla u taliyo inuu mooriyaannimada iyo dilka inuu qabyaalada iyo maxaa dhijay mooriyaankii la dhijay odayaashii Cabdi Qeydidi bay ku joog karaa hawiye ma aaminsana dawlad baa la dhisaya waa noolaan kartaan odagan baa noo sheegay waa midda shalay ka hadlay dhageysta nabadda iyo beeraha barwaaqada ay tagayaan meesha dhigbaxayso shabaabku arkooday waa adinkiyo baydhabana in wadan kale ayaa ku raftay oo qarxu waa ku socda adinkan way bana wixii quality oo in ku jiray kini muxuu hay'adaha habalaqay oo madax kaga istaagay waa bal soo saaro quality-na wanaagsan oo aad ku fariisateen sida ummadda Ilaahay ay wax ula qaybsadaan sida Soomaali wax ula qaybsadaan
si yeydiina meesha ordayso oo qaarna qarax la ordaayo oo inay dhammaynaya qaarna hantidii ummadda soomaaliyeed gadgadanayo xun sida midka xun oo kurayga xun oo xasan iyo qaale yiraahaada ku hayo wiilka xun oo ka yimid muxuu ahaay buur meeshii khallaafa u dhaweeyo buurku la oran jiray oo reer xasan kalweyn iyo cabdiraxmaan cabdi xuseenkii maydka ayaa ku nasaboobay muxuu ahaa gabadhii maxamed siyaada uu guursaday waar waxa yani waa in layna daba qabto haddaad hiraab tihiin haddaad hawiye tihiin haddaad wax garataan ummaddii soomaaliyeed inta xaal bixisaan oo inayna socon karay aragtaan si qaraxa iyo wax inay kaga haraan oo wax maaragtay imaanla'aanta iyo ilaah ka fogaadka iyo diin la'aanta si layna kaga daba qabto iimaan la'aanta iyo diin la'aanta uu soo qaatay siyaasigeenan waxgaradkeenan aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee daaroodka ah ee sida daaroodka ay mareexaanka oo xosh kibri loo bixiyay familkiisa iyo asaga iyo ka abu waxaan nii sheegi doonaa jimcihii shalay la soo dhaafay maanta waa sabti jimcihii shalay la soo dhaafay wadaadka aan ka qudbaynayay baan nii daari doonaa Muqdisho oo hawiye futa madooba ah bal inay diintahay in kaleeto ininka ayaa fasiri doontaan ininka ayaa sheegi doontaan wuxuu ku hadlayo waa nii daar doona waa jimcihii shalay aha ma aha maalin kaleeto laas yar ma aha sanad hore ma aha 10 sano ma aha waa shalay wadaad ka qudbeeyay masaajid ka mid ah masaajidda Muqdisho ku yaalo wuxuu ku qudbeeyay oday wuxuu yiraahdaa xitaa diin maystaan biiraa dhageysta ininka isku fasira waa noo daar doona markuu dhamaado waa kuwiina wax garanaya iyo ummadda Soomaaliyeed taladeeda iyo danteeda ka durka hadina ka durka inda dantu waa weyn kicin waayo adinkii waa soconi hadda waa shalay waxaan sheegay qarxin dhici doono qorxina inta ka badnaan doono la socdaa ilownina live-kay wali waa ku jira waa daawan kartaa kii shalaha deeqayso shalay galiya deeqayso shalay muxuu yiraahday qarx baa dhici doona kii dhici jirana uu ka badnaan doona haddana markuu showga dhamaan doono wax kale good news baan yahay Muqdisho mid ka fiican kii maanta mid ka fiican baan yahay Muqdisho laba mudan tahay unukaal in laga daayo oo yiraahdo deeqayso baa iska leh iyo in la yiraahdo Muqdisho ha laga raro caasimadda ummadda Soomaaliyeed waa bahal galeene labadaasi ku baxsan kartaa Muqdisho dadka degan waa wada mooryaan waa wada tuugo caalamka dhaha musuqmaas ma taqaan macnaha laga yaabaa corruption da maqashay waa tuug aniga ma dhihin corruption da maqashay waa khayra maalba dhishay waa tuugay waa waray baayay hoogayay buu ku haya waa tuugo nimo eriga corruption da qari google ka geliya nacala shida ku aniga nima shaqeeye waxaan marka waxaan sheegi doonaa wax yar ku faracdaan oo maanta ka si fiican mooranta waxay daarasay argixisada Muqdisho waxay daarasay ayaa nii sheegi doonaa waxay dhici doontaa jimcaha ayaa dhihin isniinta soo socota waxaan naga xigtay beriyo Sunday adiga 72 hours oo noo qabanaya warsono codkii aw xasan shiif waa daladiisba ma jiraysaa oo ma taqaana hadda codkii waa numay kuwa assassination uu magaalada dhexdeeda ka sameeyo soo noqo wax soo galay wax inay imaanaya mare ilaahu ku dhaaray soo noqo kastaana waxeedii iyo dad ilaahu wiyan gaartay ay qabo ilaahu codka loo soo celi ilaahu codka loo soo celi ilaahu rabbi codka loo soo celi ducaysta gacmaha wada taaga wixii daarado gacanta taaga in ilaahu codka loo soo celiyo shaqaalaha aniga meesha والله saa wax ku dhigeysan karin بقى اللي حتى ماشي وجريسه marka intaas wadada والله shaqeynayna والله hawi u badnaay marka wali warcodki aaw ay wanaagsan maantay hadalku wuxuu ku socdaa nimanka futabada ku socdaa hadalka oo u baahan wax badan in loo sheego inaan u sheego hawiyo waxaad ogtihiin magaalo madaxdiina joogtaan hawiyo waxaad ogtihiin magaalo madaxdaas inay ka dhaxaysay Soomaaliya oo dhan hawiyo wuxuu og yahay suuqa codka noo sameeyay ka raali ahaada horta wadaadkii oo noo daaray wadaadkaas cod la'aan kuma dhageysanayno wadaadkii Muqdisho ka anaan muxaadara shalay ka jeediyay jimcaha ahayd wuxuu ku qudbeeyay ayaa noo daari doonaa taas ugu weynina gaariga noogu xiraya sida ku dhacdaba waqti aan ugu qaada deerto ilaah baa nala jiro oo guulaysanayna darmo wardarmo ilaahu rabbiyo wardarmo ilaaha ku dhaariye ha ceebeene ila shaqee Allah shayda ku yala shaqee san ma sade noqo inta kale ilaah baa nala jiro aduu ilaahay kula jiro wax walba helaysaa markaan tara garanna mar labaad
qoryaha iyo caanaha iyo nasiib ay u heleen markii qaran Soomaaliyeed uu xoroobay North iyo Southba in Muqdisho la isugu yimaado in dadku ay halkaas magaalo madax ka dhigtaan in qolo kastaaba xoolaheedii iyo maalkeedii iyo maskaxdeedii hadday deked tahay hadday airport tahay hadday iskuul tahay hadday tahay isbitaal ummadii Soomaaliyeed inay halkaa xoolaheedii dhigatay magaalo madaxdana ka dhigatay hawiyo waad ogtihiin si fiican baad u ogtihiin uga warhaysaan waxaad ogtihiin inaad halkaa ummadda Soomaaliyeed xuquuqdeedii oo dhan qabsateen inaad qabsateen xoolihii qaran lahaay oo dhan waxaad ogtihiin adinkoo hiraab qabiilka la yahay in hogaaminayo Landheere inii sheeganayo ku yaryaraayo sidii duduble iyo murugsade iyo shiiqaalle in ku hoos naba yihiin iyo wixii la miduhu in Soomaali North iyo Southba dadkii Soomaaliyeed daarood isaaq gudabiisa cid walba inay halkaa in kaga tagtay waxaad ogtihiin markaa ka bacdigeed waxa aad ku sheegtaan 4 biloodoo habar gidir iyo abgaal caydiid iyo cali mahdi aad ku sheegtaan sidaad isu gumaadeen markii laydinka kala tegey waad ogtihiin waxaad ogtihiin hadda hantidii ummaddu lahayd iska daa oo aad si diin la'aana ku haysataan oo bini'aadanimo xumo ku haysataan mar labaad uu diin soo geliyey diintan shalay waxaan is daaray muxaadaradii shalay Muqdisho laga jeediyey baa noo daaray oo soo noqonaynaa waa u soo noqonaynaa siyaasigan waxgaradkan aqoonyahanka u soo noqonaynaa shalay wadaadkan wuxuu jeediyaa noo daari doonaa talo xageeba geliyay bal shalay muxaadarada laga jeediyay odagaan diin buu ku soo celiyay wuxuu leeyahay diin ma haysataan hawiyow diintaan igu yar hawiyow ku haya diinta hawiyow ka sheegay waa maxay shalay maxaa dhacay Muqdisho maxaa ka dhacay diintii maxay shalay muxaadarada shalay laga jeediyay masaaska maxay ahayd waxaasaa noo daari doonaa waxaan aad saasa ku qaatay marka shacabulaadu qofkii jecel horta saasa u ballana ومن بطريق الجيلان نجا من حرب النشو كويس باي نجا من حرب الميلان نار كل الكتب في المنطقه شعب الغادي قصدي مريد في حكي سي نقطه ودرجه الشعب الغادي بالتوشيخ ونسبه صدق وحاجري من قبل انتي شيخ عبد القادر بو خليه الهي با سمن بو ليه دغيست نكان markii qabriga la geeyay baa malaa'iktu siyaasho waxay mar rabbiga waay markaas waa shacab الغادي ورسولك waa shacab الغادي ودينته waa shacab الغادي wax ka soo shacab الغادي ku dhalaa waxay dabcan malaa'iktu ay garuumayaan ilaawani kaamin gaaloobay ilaahay rabbi shacabulaadu ka dhigtay shacabulaadu min duulaha ku qabriga ka soo dhex baxay ilaahay ninkaas aan u yaqaanaa ana ilaahay ana qariga leh ilaahay xaqiisa malaa'iktu loogu daasay kale shacabulaadu xaqiisa wuxuu saaray maayo ninkaan gaal ma ahay laakiinse wuxuu ahaa nin sheekhiyo iska jecel kaas ka sheegtay ninkii ilaahay ku sheegay Sheekh Abdul Qaadir oo malaa'iktu intixaan ka qaadayeen oo qabriga hoos lagu wareysanaayay gaal ma ahayne Sheekh Abdul Qaadir asagoo laftiisa ilaah buu ahaa saas uu leeyahay fahmayna xogaa markii masaajida laga duubo maxadarooyinka su'aal badan marba ku furan ma garan micnaheeda dhageysta shacabulaadu marka saas uu yahay oo u gargaaraya qoftii marka Sheekh Abdul Qaadir jecel ilaahay wuxuu ku amaalmarinayaa sidaas sheekhu marka maqaamaadka u gaaray karaamaadka wax laga sheekay karo ma asagoo تحسبوا الدنجر يا شيخ واحد تحسبوا الدنجر مركز السؤال وحنا شيخ انت كنت تحسبها افكار قاعدين تحسبوا الدنجر واحد مركز الفرق سودنا هي الدنيا وصلنا للجمعه الدنيا ما وصلنا الا وصل بسود هذا خوف وصلنا شيخ كركز التقسيم كما سو دغي جيرين aniga dakhsi liguma talagelin buu yiraahdaa in dakhsi korkay ku soo dago qof nadiif badan baan ahay oo aniga nin adduunyada joogaba ma ihi يمر وصغي يوحظ تحسيب صورة هاي مثل نرى بيو وصغي ده يمر طعام شعبان من قصاص والنبي قاصد وقراءة أو تحسيب هو بدل جديد إلا وصغ الدنيا بالمعركة لا كان كنت جالس وصغ الدنيا مش على قصار شعبان من قصيدة وها وصغ الدنيا إلى هي كحدي نائب في رسولك أولادي رسولك كم يعني فاضون بالرسول ذريتي كم ومقلسان سيفي عم بقول مقلسان شري محاضرة على جدي مقدشو إنت سقرح دعي ساكي كورو شالي جمعيه على جيدي دقيسته نين كان وحو داي سياسي ها حوج بري dadka diin ma haystaan biyo isma qarxina diin haystaan isma laayeen bilqa ma jireen lisma dileen balaay ma dhacdeen dadka xoolo lama qaateen fuda madoobe bal dhageysta يا حسن يا حسين أيو كفر
شيخ لما شعب غادي واحد يفتي إنه أصلا وعدين هي بعد فكر كل أنت كنت صاص تبدأ كتير ما كان صار أرجع شعب غادي ما كان صار واقع هي أرض ضبي شعب إذا قالوا كلجوب ما دحين إنه مالك تطي أنت كمان مالك تطي ضبيش برضه التصرف هذا ضبيش إلهي وكنت تصرف حياة ضبيني كرطوبي ما دحين حاجة كرطوب وعدي بمرت بالليل هو في وسيله اسكت بحي وما تحي سوق على انت كان سوق اساس اسمه بدين مركز هذا شيخ مركز اساس واحد اللي اصلا مثلا ضرب عليها هي بعد ضروري انت كنت مركز قاعد هو كويس ضرورتي مركز والله هذا يوريا وعلى ضربت هاي انا ضدك من كل بيئه وعد ما كل انا ما كان عينيسا صار ضرورتي فعلا شيخ مركز تصرف عين كاسه شيخ أود لها الرب ما درع عسوا ميل أن ضد محاضر وجديناي ضد كلا على الربكي درت له يوريا أنا كده ضد أوجد بينها عادين وإمارة ضد كلا عيرنسا أوجد بينها إلا المقام كاسو جاري لنا المقام كل هاي شعب الله الشيخ فبالعدالة لما أنتم يدوا بلاد الله ممكن تحت حكم وادي الجديد بلاد إلهي بوادي وقم أنا تصرف يا وادي الجديد فتما ويرتقي جاهرة بلادك ما صنع يبوادي قول يسوع أنتم يصلوا في المكان ذيك وصلها باقي سبب نفسي مركز شوف أن شعب الله المقام كل جاري بالأرض واحد إنه عدو عيوين ويروين باقي وين كي مركز قبل هذا الشيء وحي عاطفي عيسى قبر سي قبر الوين ما كان هذه لو تروين يا قبر يحدث عنه مركز سيداس شيخ وحها درجه عين كاس الى قاسي ما عيسى انه ان شلج محاضره كده عدو كاسا ان حوش محو يراهي marka محو dhinaca diinta ka yiraahdo حوش ninka madaxa ka jira aabi uryaanka yahay ama mid ka horeeyay oo shariif soo kuday la oran jiray ama mid ka horeeyay oo bariwa minister sheeganayay ku soo xoosho maxaa la aamusanta marka ku arko saamba u aamustaay soo sheeganaya abgaal markii ay dintay markii habar jirtay haba dhinac u ordaysay ay kala mardaba ma dhici doonto wala san mardaba dhici doon kala waa suuqi xiriya gaariga suuqi xiriya kala والحاجه اللي جرى هنجري والحاجه اللي إلهي أمر كيس وحول بو أركز الدكان وحول بو صوب بارني وقتي بنيجلي قرش بنيجلي أنا ونرادي حالي مصيع حالو دو حراديناي محاضرadaas iyo sida xooshku isku keenay iyo sida u dhageysan leeyeen wax wanaagsan oo runta ku jirto shalay baan nii sheegay ina qarxa dadkan loo diyaariyay oo dad badan meesha ku dhiman doona oo qarxu inta ka badan yahay dadka Soomaaliya wax ma maqlaayaan war Muqdisho waxa ka jira waa lagu hoobanaya waa lagu wabaaya inta dadka gurigooda la haysto maalkooda la haysto maxaa dhijir awoodii dadka laga wareegay unu kale leeyahay dadka meesha dhisteen xay ka imaadeen 1991kii ba meesha imaadeen dadka ka ciirsateen war ilaahu ma yaabtid wax walba adigu oo arkaysa reexamarka waxay kuma mahan indii dhiman way geel dhalay ku tusaan warkaala xaqii aad xitaa soo loo aqri waa gar la caawlah ba kana xoosh iskale isku bedesheen kursigii ummadda Soomaaliyeed lahayd oo madaxweyne ama bariwa minister ahaa taas waxay keentay inna wax xukumi karin inna mas'uuliyad qaadi karin inaad khaain wadan iyo muxuu ahaay Soomaali xume inay soo baxday oo dalkii aad ku habsateen ama meeshii waxa loogu soo noqday ay ahayd khaain wadankii Cabdullaahi Yuusuf markuu Itoobiya soo galiyay weligiinba madaxtooyada midna timaadeen weligiinba suminna timaadeen saad isu dilayseen bad isu dilahaydeen sidii uu inii dili lahaa marna kuwa sheegta maxaakiin oo shabaab u badnaa oo shabaabka hadda weli in qarxinaya ama in leynayo dhigbax weli in ku wada qol kastaana inay meeshay dagaan u lahayd war wallahi ninkan free ku dhigaysan shar gareeya shar kali oo taabta ان wuxuu jira waa mid ariga shalay wallahi la shalay soo dhigaysan ogeeyna ninkan Abdullahi Yusuf Aduus 16 kun oo Mooriyana dili lahayn Ethiopia soo wada lahayn saguduri sakayta laga soo wada lahayn wallahi billahi tullah maanta lagu manaaloodeen farmaajo madaxweyne noo ah oo kursiga rabna tartan baa galina xilba war ma bahal karaba odaga warka noo sii wadaaya
كسع أدر كسع ama dekada ku lahayd ama aeroboorka ku lahayd kuwa samaysta iyo kuwa degaba inay Soomaali qolo walba degaan leedo degaankeedii ay tagtay laguna kala tagay calankii madooba oo halka magaalo madaxda markii qaranka la noqday la saaray ama nimanka sheegta Somaliland hadda la baxay ingiriisku gumaysan jiray ayagoo wada calankii halka ay Soomaali ugu keeneen inaad meeshii adinkoo sheeganaya hiraab marna sheeganaya abgaal marna sheeganaya maxas xaraantii xalaashu ayaan u kala soconayn sida ninka terroristaha oo Ahmed Jamcaale war Somaliland baan iga carartu yiraahay war Isaaq baan iga carartu yiraahay war calankii baan niikeenu u dhahay war marna hiraab baa sheeganaysaan marna balaaya sheeganaysaan marna qarax baa ku abtirsanaysaan marna mooriyaanimo ku abtirsanaysaan marna al-shabaab marna maxaakiim war magacyo badan wax ma sheegdaaba ku soo cadeen ama waxa la mid sheeganaya ama kuwa lacagta duulduulaya sameynaya inaad meesha adinku hawiya ku hadheen dabeedna hawiyanimadii ama hiraabnimadii ay isu bedeshay abgaal kuraas isu bedelaya marka sida ay tahay waxaad joogteen dalka barwaaqa waxaad joogteen hogaamin wanaagsan waxaad joogteen horukac iyo muxuu ahaay Soomaalinimo wixii oo dhan hadiina baahin ahayn oo wixii yeedahay soo yaacayna ahayn waad xasuusantiin dadkiini waaga joogay laakiin waxaad u badantiin oo majority ah yeeda kuwii ahaa oo dadka gurihiisa haysta oo haysta madaxweyne sheeganaya ama sheeganaya inuu garacsada yahay sida Ahmed Jamcaale midka sheegta hilibka badan hadda iniisa sameeyay sida yaxrado kale aad ugu orodaan markuu meel hilib ku sameynayo waxaad ogtahay hiraab ama noqdo ama hawiye noqdo ama doofaar noqdo ama daayir noqdo hiraab madax u yahay hadalka aan wuxuu u socdaa xasuusin ma ahan ay ma ahan aflagaado ninkii u qaataana oo khalad buu u qaadanaya waxa weeye haddaad hiraabtiin iyo haddaad hawiytiin haddaad xamar joogtaan dib u baraarujin bal maskaxdiina wixii wax garanaya inuu ka marxaati furo khaladka aad ku jirtaan ama addow iyo 20 sano ku jirteen ee Soomaalinimadii ku baabiiseen ee qarannimadii ku baabiiseen ee aad ku dhigbaxaysaan bal eega adinka mooyee meel baabuur qaraxaya oo ka dhacayo sida aad ku dhigbaxaysaan oo u dareemayn qaldaadka aad ku jirtaan waxa kamida 17 degmo markii mid abgaaluhu madax ka yahay mid hiraabu madax ka yahay 17 station Muqdisho markuu mid hiraab ama mid abgaaluhu madax ka yahay markuu gubernatoriyi ama gobolka ama komisariyi mid abgaal ku bedel ay habba mid jaahila oo madaxweyne sheeganaya oo abgaal ku bedel ay habba mid jaahil markuu gubernatoriyi ama gobolka ama komisariyi mid abgaal ku bedel ay habba mid jaahila oo madaxweyne sheeganaya oo aan garanayno meeshaan inay tahay meeshii qaranka Soomaaliya 17 station Muqdisho markuu mid hiraab ama mid abgaaluhu madax ka yahay markuu gubernatoriyi ama gobolka ama komisariyi mid abgaal ku bedel ay habba mid jaahila oo madaxweyne sheeganaya oo aan garanayno meeshaan inay tahay meeshii qaranka Soomaaliyeed ay iska lahayd ama adduunkuba ogaa marka uu habba sida midka jirane iimaan laawga halaaruuska meelaha ka soo qaadanaya qabiyaalada aad ku daba taagantahay abkaal ku bedel 17 degmo ama 17 station ama gobolka ama muxuu ahaay komisariyi gobolka qabiil abgaal la yiraahdo isba bedelaya hebel ku bedel dadka toori gobolka ama muxuu ahaay komisariyi gobolka qabiil abgaal la yiraahdo isba bedelaya hebel ku bedel dadka anaasiiro yeedii dalka qabsatay ahaa ama wax xun ahaa ama wax xisbi la ninka wax magaradka anaasiirta xune qayn wadanka hadda shaqada ka dhigtay qoladu arkaba warqad inuu u saxo yiraaho ciidamadiin saldhig baan ka siinaya waxaasad qabiyaalad ku daba taagantihiin
hiraab iyo hawiye waxaan ula hadlahayaa xasuusin iyo dareengelin qashinka ay dhex fadhiyaan inay xaaqin u qaataan ama wax gartaan ma noolaan kardhaan ma jiri kardhaan arxoy deeqo miyada muqdisho rajo ka qabin aan muqdisho horta xitaa aan horta rajo kama qabo oo inaad taga ma qabo inaad dhinto ma rabo maanta rabo inaad dhinto oo duqoobo mise xanuun qabto baan isu tagayaa si lii dilo oo nafta lii fududeeyo meeshaas baxalaa jooga dadka degan 100% waa al-shabaab oo argagixiso haddii aad leediin waa laga cabsanaya mati kale ninkan iga aqoonta badan ba muqdisho ku nool yahay muqdisho ayuu degan yahay arxu idin kama kacayo dilku idin kama kacayo shabaabku waa adinka waxaan guriga doonaya waa adinka midka qaain wadanka waa adinka waxa weeye war Soomaali kama maarantaane waad aragteen waqooyi baa ka go'ay waa ka go'o qashinka wax wada sareyno markaad waxa sameynayeen weeye daarood baa idin ka tago Jubbaland iyo Gado iyo Bu'aale iyo dhulkaas u dhigta iyo Jubbooyinku haystaa bari iyo Boosaaso haystaa daarood wuxuu haystaa muxuu ahaa kilkii sharaad buu haystaa war meeshaan aad ku jabaysaan kama liidataan hawaadle marka hiraabna maaha hawiya yeedana maaha this why uu shalabada ganood la isaga keenayo markaan wareysanay waxay yiraahdeen waxna ma deeqaan waxna ma gartaan waa hawiyaal waa waxa cadaadadu ku tahay midka hawiyaanka tuuforso la cawsba culi kara ma oga hawiyaanku inuu dhargay in laga soo xareeyo maahane subax markuu foofo soo u daaqay qorraxda marka dhacda la keenay guriga soo wali iska culaay ma oga waa dhargtay hadda wuxuu yiraahay dhageysta oo ma yiri ay uu shalabada ganood la isaga keenayo markaan wareysanay waxay yiraahdeen waxna ma deeqaan waxna ma gartaan waa waxa cadaadadu ku tahay midka jisano oo laga jooga dhuusa mareeb waxa laga xukumaya cadaado kuwa isla hiraabkii waa kulaaday waa gubaraba waa ololaya war hawiyo ama hiraabo ma jiri kadib oo ma noolaan kadib oo muxuu ahaayey aeroboortkii Soomaaliya ayaa turki ka qaatay nin madaxweyne sheeganayo turki oo dadkiisa hadda dilayaan ayaa in ka qaatay iskuuladii dadka Soomaaliya ku dhisteen iska wax qabsan la qaatay isbitaaladii baa la in ka qaatay ummadda Soomaaliyeed baa lahayd waxaan uu Xasan Sheekh gadanayo ka gadanayo madaxweynaha Turkiga ama naagta Turkiga uu ka gadanayo abaar baa dadka heshiis ku soo galay dalka maahan waa isticmaalka fooqa isticmaal dadka daayo adduunku waa leeyahay dad adinkoo kala ah بالله عليك شير قريه وامحي دولك قف داوس واني بريا شير قريه ان شرط العق معها دد بدن ينفهم بدن نوع ايماناي حقيقه فيري مور dadku badiyeen waa moor meesha fiican tahay inoo dhisan tahay oo shaahina iska cabeeno sheerta waxa ku wadhiis meesha dad baa sheerta aqoonin waa meesha saacad ku qortay sac iyo ha iyo maxalli jir ha iyo aada iyo aart en raada iyo en aad meesha ku qortay halka farta kaliya iska saar waxba kuma dhimayso in adeero iska taabo waxa imaanay ehelka imaanaya taariikh bay baranayaan ninkan iyo dadka Soomaaliyeed inay wada arkaan wuxuu noo sheegay waa xaqiiq wallahi wax run ka hadlay aniga wuxuu ka hadlayo waxa ninka waa uu soo joogay aniga hadda waxaan ka hadli karaa waxaan 20 years waa ka hadli karaa waan u soo joogay waxaana soo joogin aan soo wada arrinteena social media soo gashay ayuu ka hadlayaa suuqii marta in artaan waa oday weyn walbu jeedaan ilo waa gudulay ما دعدينا معها وابينا كلمه واوغين marka wuxuu ka hadlay waa run inna urumarahay wax garata diinta garata inna rahayn muxuu ahay dad aqli leh wax garta ibhaankiiba adinki speakerkii uu ka fuqay intaas ku soo gabagabeynayna en meeshan waxa u gudbinaynaa en YouTube ku aadaya shoogan aad u fiicay maadaama taariikhda badan aad loo kulaaday ila qubaysta dollar oo balay aad u kulaaday wallahi wali buu kulaaday waxa dhigay marka إله ربي نكان وحنا نبري خير كسي وأجر جبدل وحسنات جبدل أقوم بكبرنا هوي فتو مدوي شلي بان شيء إنه مقدش قرح كده يدونه وحنا قرح سمي وفقي بقرح سمي وفق إلى التلفزيون هاي سبراي أحمر سوق داعي والله بالله فقي أيا وحنا سمي إن إيش
qarxi asagana ka hadlaya hasha ayada cunaysa ayadana cawaadaysa hawiya asaga isqarxinay asaga qeylay war daaradka degan meelaha kale ma isqarxiyaan war isaaq mu isqarxiyo war meeshan maxay tahay war boosaaso guri saaray ma la qarxiyo war hala bi qarx ma yarto dadkan ayaga waxay rabaan inaysan noolaanin oo dawlad ka dhalanin oo sanni kale u talanin war fiir ayos cunayo oo miisaan dadka la saarayo oo miisaan la saarayo dadkii Cabdullaahi Yuusuf ka soo gaaray arxay kan wuxuu asoo ku hayo buu badbaadiyay dawlad buu u dhisay wuu ka tagay laba nin oo abgaal soo martay aan ma baqaan ninka hadda ibraayay taariikhda waa raadin doonaa hiraab iyo abgaal buu leeyahay marka waxa uu maleeyahay hawiyaba waa laba qabiilba waa hiraab iyo abgaal way wada dhashan oo maleeyahay laba aabba wada dhalay sidii daaroodku 5 wiil u yihiin saas oo maleeyahay ma ogi ana ma ogeen hawiyaha baa u maleeyahay laakiinse maanta odayga waxbuu noo sheegay aan ogeyn waa sii dabagelina Muqdisho hadduu qabiil iska leeyahay qarax wuu dhacaya wuu badanaya dhibashaduna dadkan ayaga fiiri waxa la yiraahday dadkan divide and rule bagaaladu dhahda qaybi oo xukun hawiye qaarna waxa ka dhigay inay qarxiyaan qaarna waxa ka dhigay inay madax u noqono haddii ogolaadaan Muqdisho inay tahay caasimadii ummadda Soomaaliyeed dadkan luuqadda Soomaaliya ku hadla hadii ogolaan inay tahay qarax dambe kama dhacayo waa dhisaynaa waa xoreynaa madax baa u noqonaynaa waa kala dambeyn baa ka dhici doonta laakiinse haddii loo maray inuu qabiil iska leeyahay kaala qaraxa ka dhamee kaala dilka istaaji kaala dhibaatada istaaji kaala hooyada dhiig maalin gobol ku noqonayso kaala caruurta u soo celi kaala naftaada ugu soo shub shalay baan ii sheegay haddii dhici weydo Muqdisho in caasimadda laga raro waa inay si degdeg ah u ogolaataan inay tahay caasimadda ummadda Soomaaliya unuka Allahna meesha ay ka dhamaato luuqadana ay bedelataan hadda ka horseeyay wuxuu yiraahday afgaal iyo af muslim ku imaado hal ereba u baahanahay in Muqdisho la raad tirahdaan kulli bana baxay waa weyn ah sameeysan hawiye futamada oo dhantu soo baxo boorar soo qaato hay'adaha caasimaddu waana dhibtaana laga raroy kor ha u qayliyaan markaas amaan baa iga helaysaan daarood amaan baa kiilaysaan qaraxa amaan baa kiilaysaan nabadiina waa soo noqonaysaa intaas kaliya u baahanahay caasimadda hana laga raroy war caasimadda hana laga intaas kaliya u baahan wax kale u baahan dhibaato kale ma dhacayso haddii tahay unuka iskale anigina aaminsan inay caasimadii tahay labadina kuma heshiinayno adigina waa sheegane anigana tan baa dhacaysa waa intaas kaliya wax kale oo jira malaha waa sheegane waa dhimane waa sheegane waa dhimane waa sheegane boom hashamu dhageysta mani raadiyaa boom haddana boom taas baa soconaysa haddii caasimad ay noqon weydo oo la wada lahaan waayo oo meesha ay noqon weydo kab aan wada leena ku taaganahay kabtayda haddaan ila shirgaran weydi waan kugu qabsanayaa caasimadda anaa soo dhistay anaa hadda Turkiga geliyay anaa maalkii geliyay anaa safaaradda Djibouti lagu dhisay wax kale adiga kaliya malid ma arkaysid laamiga la saaray anaa iskale dig feerka la dhisay aniga iskale isbitaalada la dhisay anaa iskale ciidanka Turkiga lagu leeyahay waxa laga dhisay xerada ugu weyn ee Afrika haddii laga dhisi lahaa Garowe caasimad bay noqon lahayd haddii safaaradda Turkiga laga dhisi lahaa Garowe caasimad bay noqon lahayd haddii Djibouti haddii laami loo saaraa haddii isbitaalada haddii jaamacadaha u dhisay Turkiga haddii laga helo Garowe caasimad bay noqon lahayd inta kaliya loo baahan yahay waa labo ina ogolaata in la wada leeyahay iyo ina tirada caasimadana laga raro wax kale ma jiraan Soomaaliya hore u soconaysa intaas kaliya ergaas ku xiran tahay daaroodku ma sheegayo inuu yiraaho caasimadda waa la raraya waa adiga inay ka soo go'daa oo qaylisaa sida fiinta waa inuu qaylisaa sida fiinta taa u qaylin weydi haddana bum waa sharci u shargaray ha arkaan hawiye futamada ha arkaan fiqi ha arko fiqi already wuu daawada oo wallahi wuu daawada iyo billahi tallahi wuu daawada gurigiisa TV 1 buu daawada u shargaray intooda kale baadiyaha joogto waxa aqoonin intaas aan uga baxaya video oo tirtiraya YouTube ka daalacay kartaa wixii gudbina oo loo sheegay waxa leeyihiin deeqayso wuxuu ugu jira YouTube maanta wuxuu ka hadlay hala daawado ani xaqiiqada ka hadlaa meeshan qabyaaladii qabiil ma taalo waa siday tahay baan uga hadlaa odaga 8 jirka asaga iga sii darnaaba sidoo runta uga hadlay ana runta ka hadlay ma baqaanba intaas loo baahan yahay Soomaali waxba iskuma jiraan Soomaali waxay ku dhisan tahay 4.5 qabyaalad bay ku dhisan tahay qabiil bay ku dhisan tahay dad waxay ku leeyahay maxaa qabiil iyo qabiilo u hadlaysaa annaga baa ku dhisanay waxa ku dhisanahay federal oo qabiil oo qabyaalada si aan looga hadlaynin aniga daarood baan u taaganahay kaagan hawiyo waxa ka mar rabo aniga wala ana ka rabin sharaf wala ana ka rabin lacag wala ana ka rabin xil inta daarood baa yahaya 9 gobol oo kamidana Soomaali daarood baa iskale waxaan rabaan noqon karaa meesha rabaan mari karaa meesha rabaan maanta xilka qaban karaa xil baa leeyahay taagan yahay aniga wali waxa taaganahay wax ka weyn baa u baahanay tan qorax bay dhaayaysa saas baan ku soo gobinaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh